الرحمن الرحيم ولا لا يرسل هذا qaabka loo xaliyo mashaakilka qofka bini'aadamka ku dhaca siyaabaha loo xaliyo ugu wacan Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo sidayaal aqliga iyo si walba ku caafimaad ahaan iyo maskax ahaanba Ilaahay amraysan mashaakilka bini'aadamka loo xaliyo marka afartan qaybood buu soo gudbin doonaa taxana maanta waxa qaadanaa labada ugu muhiimsan koowaad waxa weeye al-istirjaac inda masiiba markay masiiba kugu dhacdo inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala u istirjaacto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ugu horeysay qofka mas'ala ku soo degto cilaajkeeda koobaad waa inaad tiraahdo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waana dhaqankii nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigeena weyna alayhi salaatu wasalaam nafta marka kelmadda tiraahdo waxa ku soo degaysa xasilooni deganaan xadiis saxiix ah oo laga wariyay Salama waxay leedahay waxa ka maqan rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagoo leh ma min muslimin tusiibuhu musibatan musiibo ku dhacso fa yaqulu dhahaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allahumma ajrini fi musibati akhlif khayran minha illa khalaf Allah khayran minha qofkii dhahay inna lillahi raaji'uun ilaahay musiibadan iga ajarsi oo wax khayr la igu bedel ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr la igu bedela waxa walaalayaal xasuusataan oo maskaxdeena dib u xasuusana taariikhda islaamka Salama markay nabiga ka dhintay ka shahiiday xaaskiisa ninkeedii uu shahiiday way istirjaacsatay musiibadeedii waxay ka daweysay istirjaac marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu bedelay musiibadeedii cid ugu fadli badnayd adduunka joogtay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu guursado sawaajkii nabiga ay ku heshay markay ninkeedii ka dhintay ka shahiiday baytri Ilaahay wax khayr la igu bedel Ilaahay muxuu ugu bedelay nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu noqday kii Ilaahay khalafka wuxuu Ilaahay uga dhigay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo adduunka aakhiraba isagay maciisa hana saa walaalayaal marka tilaabada koobaad marka mashaakil kugu dhaco qaadayso waxay waa istirjaac walaalayaal talabaad haddaan walaalayaal u gudubno waxay noqonaysaa kalmaad waxa weeye تأنيب وعدم الإرجاع تأنيب يعني وعدم يقف إنه ندقدقين marka qofka mashaakil ku dhacdo nabiga sallallahu alayhi wasallam mashaakil badan ku dhacday markii Israa'iil Mi'raaj loo qaaday dadku rumaysan waayeen asxaabtii markii la dhibayay mashaakil fara badan baa nabiga sallallahu alayhi wasallam ku soo dhacay marka siyaabihii muskilada nabiga sallallahu alayhi wasallam xaliyay waxa kamid ahaa tafkiiru fi amriha wa adam ajal تفكير في أمره وعدم عجلة افتخار إن أرك ولا فكرك وكفكر كذا مشكلة حل كذا لكن إن هذا جوعان دق قاضي جوعان هذا كشرة لكن حلقة بري وأنا دب دقتها واحد دق دقات تبرينه وكل بيا لكن وأنا دب دقتها وين بري هذا تصادم منه هذا شو السديد في نمو سجال قصبحنا إنه يحسكها بدل ما بدي كرتها واحدة وحمر كام حال روقف إنه يستجيو ونفط الدجيو وعرض كإلاليو وإسكإلالي عرض وحكي أنت وحيالا بمفتاح كل شروي عايدة أفهم هذا وحيالا صدق كأرس وحيالا بدل نفط يجدان كوكال مني مركز على تد نفط ما ممكن نفط قعنتو قل لي وكراها يستيل وحقراها غفل وحق سماء مركوانا إسكإلالي سا شيدان كمروا الباء وعليكم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالرفق وإياكم والعنف والفحش فإن في الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وحنيد الدار من وناكسن أنت عنفك نسكيل عليه فحشك رفقي وحويه ما قال الشيء إلا زانه وقرحيا شيء لقى مسيبه إلا شانه وحماضة شيء وناق تتكن صغار حمد دبع سنتين عاوية قناة قفك هدوش تبعيه معاملة تقول ست دبع سنة رغبه وشيء هو عمي قرحوي هديش قفك الدبع سنتي وأضيق ست جاهل لماذا كتبته قفك سبحانه قناة يقف حماوي مركا خدام كونه يقول لها الله حاسسك هوينك مؤمنين عايشة يقول لها الله يا هوين كانوا مسلمين يقف قصة مسلمة كامر الحد كعرض مر البنات حددا من والبن وإلى وحكر جيسا مركا ساعدها عرسنت هاي والشيء خطر أيا سكسوغنت هاي النبي صلى الله عليه وسلم نيكم مركو يقدر دارو كيقول لا تقضب عرون مركا ولا مركا عرتيدو أنا دس بدشا ودا تاغن وين فرستا هدا وين وشيستا وين قبيستا وين لفت دجيسا مركا go'aan degdegana wana iska ilaalisa insha Allah 10 وين soo socon doonaan subscribe saara channel-ka waa mahadsantiin